Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Diinta iyo dhalinyaranimada. Haddii aan oranayo diinta iyo dhalinyaranimada, ma ula jeedo inaan isbarbardhigayo, balse waxaan halkan ku lafagurayaa kaalinta ay dhalinyaradu ku leeyihiin diinta. Haddii aan fiirino asxaabta badankoodu waxay ahaayeen dhalinyaro, waxa uuna nabigeenu yidhi, dhalinyaradii ayaa ii gargaaray markii ay odayadii diideen. Qiimaha ay diintu dhalinyarada siisay waa xubinta ugu muhiimsan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan. Oo asxaabul kahfi loola jeedo, iyaga waxay ahaayeen dhalinyaro rumeeyay rabbigooda, waxaana u siyaadinay hanuun. 3 weero ayaan ka sheegi doonaa kaalinta ay kaga qaadan karaan diinta islaamka dhalinyarada. Beerad koowaad, haddii la baranayo diinta, waxaa u sahlan dhalinyarada. Inkastoo ay qof kasto baran karto haddii ay dadaasho, laakiin tii yaraanta ayaa markastaba sahlan. Maahmaah carbeed ayaa dhigaysa, cilmiga yaraanta lagu bartaa waa sida dhagaxa oo kale, balse cilmiga weynaanta lagu bartaa waa sida biyaha oo kale. Weerarada labaad waxa waaye, haddii la doonayo in diinta la gaarsiiyo balad kale, waxa u sahlan oo gaarsiinayo waa dhalinyarada. 3 haddii jihaad la doonayo in la qaado oo diinta lagu soo xadgudbo, dadka dagaalamaya oo jihaadka qaadaya waa dhalinyarada. Halkan laguma soo koobi karo dhalinyarada diinta waxa ay ku leedahay kaalinta ay ku leedahay, balse waxaan intaan ka ogaanaynaa inay dhalinyaradu diinta kaalin weyn ka hayaan. Haddii aad fiidiyogan daawatay, fadlan subscribe saar, iina share garay channelkan.